bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka warbaahinta xog waran show qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khilaaf cusub oo soo kala dhaxgalay madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa magacyada mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo xilka laga qaadayo saacadaha soo aadan al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada Puntland ee qasaraha ka dhashay weerarkaasi مسؤولين كترسان دولة فدرالك وشاعية إن قرشانيان إلا سوق بتو أحمد مدوبي جنن إحدق إذا كحوق على الشباب كلا وريجي ديجانا كترسان قبل كبكول إيه دولة اليابان وشاكتي إني قفيفين يسوبندو جساران دل كذا قضبضها سيادكم مغلدونتان وركا ورباهين تحقورا شو فضلا هذا نقول عصبتها سبسكرايب صار الرجال كان لايك شير كومنت صاحب هذا لو ذاك ما سندين دمانتين بقى وهاجاgan ku bilowna qodobka ugu horeeya kadib markii shalay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xilka ka qaaday talay ku xigeenka ciidanka madaxtooyada Puntland isagoo sidoo kale magacaabay taliyaha ciidanka madaxtooyada oo sargaalkii hayay uu iscasilay iyo ku xigeenkiisa hayeeshee waxa taasi ka hor yimid madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland warqoraal ah oo lagu burinayo xilka qaadista ee magacaabista uu ka soo baxday madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa soo saaray madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash waxaana lagu sheegay in xilka qaadista taliye ku xigeenka madaxtooyada aan waxba ka jirin isla markaana tilaabadaas ay tahay mid sharci darro sababtoo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ugu yimid xilka qaadista lagu sameeyay taliye ku xigeenka ciidanka madaxtooyada ayaa waxa lagu sheegay inay tahay in aan lagala tashan go'aanka madaxweynaha Puntland warkan ka soo baxay madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa waxa uu u muuqdaa mid khilaaf hor leh ka dhex abuuraya madaxweynaha maamulka Puntland iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cusmaan Karaash markana hadii aan eegno sida ay sheegayaan ila wareedii lagu kala soonaan karo waxa dhawaan shaqada laga iriyo doonaa xilkana laga qaadi doonaa ilaa ay la xagaasimo oo hadda shaqada haya xogta ay heshay xog waran show ayaa waxa kamid ah agaasimiyaasha xilka laga qaadayo kow agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Axmed Maxamuud Cabdulle Tigane labo agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Cusmaan Cali Yuusuf Cali Xoosh saddex kusimaha agaasimaha Puntland TV Daahir Cabdulqaadir Axmed Daahir Aflow afar agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Cali Nuur Juba shan agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulka Puntland Maxamed Cali Faarax Farmiyeye iyo agaasimaha wasaaradda amniga ee maamulka Puntland Maxamed Iimaan Cabdulle xogtan ay heshay xog waran show ayaa waxa uu xaqiijiyay in wareedii lagu kala soonaan karo oo ku sugan xarunta madaxtooyada maamulka Puntland warkeena ayaa dhageysanaysaan markana aneego gudoomiye ku xigeenka gobolka Gado ana kusimaha gudoomiyaha Cusmaan Nuur Xaaji Maclimo ayaa sheegay inay ku hoolan yihiin si loo soo qaban lahaa madaxda maamulka Jubbaland gudoomiye Maclimo oo gacan saar leh dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in gobolka Gado ka suuliyeen qof taageersan maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe isla markaana ay qabashada Jubbaland ugu harsan tahay oo kaliya inay soo xiraan saddex nin oo Axmed Madoobe ku jiro gudoomiye ku xigeenka gobolka Gado Cusmaan Nuur oo la hadlay idaacad maxalli oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale sheegay in gudoomiyaashii ay dawladda dhexe u magacawday degmooyinka gobolka Gado ay si caadi ah ugu hoolan yihiin isla markaana aysan jirin cid ka hortimid markii laga reebo hal nin balse laga qaaday degmadii uu isku dhajiyay oo la geeyay magaalo kale qof maanta Axmed Madoobe taageersan oo gobolka Gado iska daayay Jubbaland ku noolaan karo ma jirto qabashada Jubbaland waxa nooga harsan oo kaliya in la soo qabto saddex nin oo kala ah Axmed Madoobe xidig Cabdirashiid Janan ayuu yiri Cusmaan Nuur Xaaji gudoomiye ku xigeenka gobolka Gado 16 bishii Abriil ayaa had markii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo xubnihii isbedel doonka ee Jubbaland uu ku jiro Cabdirashiid Janan ay heshiis kula saxiixdeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya talaabadan ayaan la ogeyn sida ay ku dhaqan gali karto maadaama magaalada Kismaayo iyo deegaano kale uu xoog ku haysto Axmed Madoobe
markan gobolka bari haddii aan eegno wararka laga helayo gobolka bari ayaa sheegaya in al-shabaab ay weerar gaadmaha ay ku qaadeen saldhig ciidamada Puntland ay ku leeyihiin buuraha galgala ee gobolkaasi dadka deegaanka ayaa xog waran show u sheegay in weerarka uu ka dhacay saldhig ciidamada daraawiishta Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Bali Khadar ee gobolka bari wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in ciidanka daraawiishta Puntland ay iska caabiyeen weerarkaasi iyadoo la sheegay inuu dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac sidoo kale saraakiil ka tirsan Puntland oo la hadlay warbaahinta gudaha ee Puntland ayaa sheegay in weerarka ay soo qaadeen al-shabaab ay kaga dileen 3 xubnood oo ka tirsan al-shabaab iyagoona sidoo kale sheegay in iyaguna dhankooda uu khasaare uu ka soo gaaray kooxaha al-shabaab iyo Daesh ayaa xilligan waxa ay ku sugan yihiin buuraha galgala iyo Cali Miskaad ee gobolka bari iyadoona inta badan weerar gaadmaha ku qaada saldhigyada ciidamada Puntland ay ku leeyihiin gobolkaasi warka xog waran show ayaad weli daawanaysaan daawadayaal markana ciidamada xoogga dalka ayaa waxay howlgal ka dhan ah al-shabaab ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool ciidamada ayaa howlgalka waxa ay kula wareegeen deegaanka Abaqgeedey oo qiyaastii 20 kiiloomitir dhanka bari uga beegan magaalada Xudur ee gobolka Bakool taliyaha ciidamada guutada 9aad ee qaybta 6aad Mukhtaar Maxamed Cabdullaahi Geesi ayaa sheegay in ciidanka howlgalka ay kula wareegeen deegaanka Abaqgeedey oo qiyaastii 20 kiiloomitir dhanka bari uga beegan magaalada Xudur ee gobolka Bakool taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in weerarka ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kalena hub badan ay ku soo furteen waxa kale uu tilmaamay in howlgalku wali uu ka soconayo deegaan hoostaga magaalada Xudur ee gobolka Bakool warka xog waran ayaa daawanaysaan daawadayaal markana akhbaaraadka dibadda dowladda Japan ayaa xaaladii degdeg ahayd ee wadanka loogu soo rogay viruska corona awgeed ka qaaday 39 gobol oo kamid ah 47 gobol ee dalkaasi kadib markii ay aad hoos ugu dhacday tirada dadka uu ku dhacayo viruska coronavirus xaaladda degdeg ahi waxay weli sii saarnaan doontaa gobolada Tokyo Osaka iyo jasiiradda Akudada ee waqooyiga ku taalo oo maalin kasta qof viruska ka qaaday laga soo sheegayo ra'iisul wasaaraha dalka Shiinaha Shinzo Abe ayaa sheegay in xaddiga cudurka ku faafay ee Japan oo 7 meeloodba meel isdhimay marka la barbar dhigo sidii uu markii hore ahaa waxa uu shacabka ugu baaqay inay ka fiijignaadaan khatarta cudurka coronavirus haddii ay suurto gasho inta ka horeysa 31 May waxaanu jecelnahay inaan sidoo kale xaaladda degdeg ah ka qaadno gobolada kale ayuu yiri Shinzo Abe ra'iisul wasaaraha dalka Shiinaha warkii aad ka daawanayseen xog waran show waa naga intaas daawadayaal